630 imaamo masaajid ah oo loo xirxiray isla markaana loo ciqaabayo faafinta diinta Islaamka. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal u ducee culimada like saar share gareen naguna soo biir si muuqaalkan saaxiibo badan u gaaro dhiirigelin ay nagu noqoto mahadsanid in badan. Dalka Shiinaha waxaa lagu xiray ugu yaraan 630 imaamo masaajid ah kuwaasi oo loo ciqaabayo faafinta diinta Islaamka iyo madax kale oo muslimiin ah kadib markii la bilaabay howlgallada ka dhanka ah muslimiinta Shiinaha ee ka socda dalkaasi China. Waxaa jira cadeymo muujinaya in 18 wadaad oo 630 culimada ah ka mid ahaa ay ku dhinteen meelihii lagu xirxiray iyo jirdil xooggan oo ay u geysteen ciidamada dowladda Shiinaha. In badan oo ka mid ah 630 culimada ah iyo dad kale oo muslimiinta Shiinaha ah ayaa loo xirxiray sababta ay muslimka u yihiin, iyagoo lagu qasbayo in ay shuuci noqdaan oo ay diinta suuban ee Islaamka ka baxaan. Waxaana boqolaal culimada iyo dadka muslimka ah lagu eedeeyay in ay xagjiriin argagixiso ah yihiin ilaa ay ka baxaan waxa uu Shiinuhu ugu yeeray diinta argagixisadana aan la sii day doonin, iyo in ay isku keenaan culimadu dad badan si ay diinta u baraan, dowladuna aysan arrinkaasi ogolayn. Sababta ugu weyn ee culimada loo xirxiray ayaa waxa ay tahay wacdiyada ay jeediyaan maalmaha Jimcaha iyo Ciidda iyo mar kasta oo kulan duca uu jiro, iyo sidoo kale salaadaha jamaacada lagu tukado, iyo in ay tujiyaan boqolaal iyo kumanaan muslim ah oo imaamyada masaajidada amarkooda qaataan kuna camal falaan, taasi oo dowladdu aad uga xumaatay. Imaamyada oo intooda badan hal mar la xiray ayaa waxay u badan yihiin qabiilka Uyghur oo inta badan dadkiisu ay muslimiin yihiin, kuwaasi oo cadaadis badan ku hayso dowladda Shiinaha. Waxaana inta badan culimada la xiray loo kala qaybiyay kuwa xabsiyo toos ah ku jira iyo kuwa lagu xiray goobo ay dowladdu sheegtay in ay ku dhaqan celinayso si dadkan ay shuuci noqdaan isla markaana islaamnimada uga baxaan. Waa sida ay doonayso dowladda Shiinaha. Dowladda Shiinaha waxa ay difaacday xeryaha lagu xiray dadka iyadoo sheegtay in ay yihiin kuwo ku meel gaar ah oo wax lagu barayo si looga hortago falalka argagixisanimada ah ee dadkaasi ku jiraan iyo xagjirnimada ah ee dhinaca diinta. Waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Shiinaha. Xog laga helay maxkamadaha iyo waqtiga xabsiga ee lagu xukumay wadaadada ayaa waxay cadeynaysaa sida loo xukumay 96% imaamyada iyo dadka kale ee la xiray waxaa lagu xukumay ugu yaraan 5 sano oo xabsi ah. 26% waxaa lagu xukumay 20 sano iyo wixii ka badan, waxaana ku jira imaamyo iyo sidoo kale culimo waaweyn oo 14 qof ka kooban oo xabsi daa'im lagu xukumay. Waxaana sii kordhaya muddooyinkan dambe cadaadiska dowladda Shiinuhu ay ku hayso muslimiinta dalkaasi ku nool.